halkaas waxaa ku xalismada marka waa waqtiga cali bin abi daalib quraanka shakligiisa in si sax loo akhriyo oo marka xarakada iyo dul saaray caalimkaas waxaa dhihi jiray luqada carabiga ninka bilaabay waadi luqada carabiga kan bilaabay oo dejiyay luqada carabiga oo quraanka xarakaadka dul saaray caalimkaas wuxuu arday u ahaa cali bin abi daalib bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan walaalaha ku taxan beejka safiirka islaamka waa salaam meel kastoo joogtaan waa duruusteena imtixaanaha ahaa ee culimada islaamka aan kaga hadlaynay aclaamul muslimiina iyo kaalinta islaamka ku lahaayeen iyo cilmiga faraha badan maanta aan haysano juhdiga laga soo maray iyo dadkii qoray iyo duruufaha ay ku qoreen iyo waxay maxay ahaato sida sahlan maanta aan haysano marka inay ajarkoodii kaalintooda leeyihiin da'yarta ay bartaan maanta waxaan soo qaadanaynaa culimo aclaamul luqa alcarabiya luqada alcarabiga ee diinta ku qoran tahay raggii salka dhulka u dhigay afar caalim oo waaweyn oo taariikhda baal qurxan kaga jiro da'yartana aysan garanayn qaar badan oo kamid ah ilaa intii luqada ku takhasustay mooye yaan soo qaadanaynaa ninka koowaad waxaa la yiraahdaa abul aswad du'ali oo ah ardaygii cali bin abi daalib oo nin maxay ahayd mawaalida kamid ahaa oo la xoreeyay marka luqada carabiga quraanka ku soo degay Allah subhanahu wa ta'ala yaa u doortay kitaabkiisa quraanka wakadalika anzalnahu qur'aanan arabiyyan marka qur'aan luqada carabiga waana luqada ugu waasacsan luqadaha ummadaha adduunka oo maantana reer galbeedka hata ay taagan yihiin markii cilmiga la turjumay oo loo turjumo afafka ingiriiska afafka luqadaha ee reer galbeedka loo turjumay in maanta haddana ay dhahaan mar labaad ha lagu soo celisho afka carabiga maxaa yeelay afka carabiga ma dhumaayo 13 qarn ka hor 12 qarn ka hor kutubtii la qoray sideeda maanta loo akhristaa oo loogu intifaaca halka 150 sano ka hor buugaagtii ingiriiska lagu qoray dadka maxay ahayd aqoon-yahaniinta ay akhrin la yihiin ay ku dhigtoodeen macluumaadkii halkaas ay ku dayacmanayaan ay leeyihiin cilmiga dib aan carabiga ugu soo celino muhiimada 2 milyan oo maxay eray oo ay leedahay afka carabiga kasii badanba markii maxay ahayd quraanka uu carabta ku soo dagay uma baahneen ayaga in loo turjumo oo af maxay ahayd wixii kaas aayada iyo dhowr aayad ma aan soo weyneen rasuulka kaleey soo fasiri jiray ama maxay ahayd saxaabada ay weydiin jireen waxa aayad isla jeedo laana quraanka afkooda ku soo dagay wayna fahmayeen si waadixeen u fahmayeen marka laakiin markii islaamku uu faafay oo rasuulku dhintay kaleey salaatu wasalaam waqti Abu Bakar Umar islaamku uu faafay futuuxaad magaalooyin u galay aan aysan carabtu deganeen ajimta deganeen Iraq Sham Masar marka yaa waxa dhacday marka dadkii aan carabta ahayn inay afka carabiga ku dhiftoodaan afka carabiga hatta quraankii marka waqtiga Abu Bakar la qoray iyo waqtiga Uthman laba jeer la qoray sidaan sheegnay ma xarakaad ma lahayn xarakaad iyo xuruufo ma uusan lahayn marka waxa dhacday marka in maxay ahayd quraankii xarakad ashkaal loo sameeyo ay dadka kala garan waayaan kordhigi hoos dhigi goditaankii reebitaankii maxaa goormo kelmadan kor dhigmanaysa goormo hoos dhigmanaysa la Yusuf wa aquhu maxay inna Yusuf kada marka maxay ahayd quraanki kelmad mar hoos dhiganta mar hoos dhigan maxay ahayd min Allah billahi inna Allah wa kana Allah marka xarakaadkii quraanka ayaa dadka ku wareereen markaas marka maalmaha kamid waxa dhacday in nin akhriyay qof arday oo akhriyay anna allaha bari'un min al-mushrikiina wa rasuluhu wa quraanka ayadu soo qorta anna ilaahay wuxuu bari ka yahay mushrikiinta rasuulkana wuxuu ka yahay bari'un min way ku cadfan tahay arday akhrina wuxuu inna allaha bari'un min al-mushrikiina ilaahay wuxuu bari ka yahay mushrikiinta wa rasulihi wa hoos dhiga marka macduufa waxay ku noqonaysaa ku cadfanaysaa min al-mushrikiina marka khalad weyn waa ilaahay wuxuu bari ka yahay mushrikiinta wuxuu kala bari ka yahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam kaas marka waxa keenta marka ardayga cali bin abi daalib in quraanka ashkaalkiisa oo la kar saaro marka uu yiraahdo hadii aan maxay ahayd kelmadii ay ka dhigantay afka la qof afka la qaadayo fatha u dhahay kordhig qor hadii uu ay soo tahay gootaan calaamada gootaan kala soo ay tahay hoos dhig loo sameeyay abul aswad ninkaas marka quraanka xarakaad ka saaray halkaas waxa ku xalismada marka waa waqtiga cali bin abi daalib quraanka shakligiisa in si sax loo akhriyo oo marka xarakada iyo dul saaray caalimkaas waxa dhihi jiray luqada carabiga ninka bilaabay waadi luqada carabiga kan bilaabay oo dejiyay luqada carabiga oo quraanka xarakaadka dul saaray caalimkaas waxa uu arday u ahaa cali bin abi daalib oo magaciisa waxa marka culimada isku taariikhiyanada isku khilaafeen Amr ibn Zalim ama Zalim ibn Amr Allahu a'lam laakiin magaciisa saxda ah magaciisa naas ku aan baxay Abul Aswad Du'ali yaa dhihi jiray marka caalim weyn ah al-Kirani waxa
تابعين تواوين كجري تابعين تواوين يكجري وحو أرضي وها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم marka musxafka iyo si sax u saar xarakaadka u saaray nuqdooyinka xataa taada laba dhibic loo sameeyay kan caalim kale asagana sameeyay markuu saa marka maxay ahayd u sameeyay faqih ahaa shaacir ahaa marka wuxuu deganaan jiray Madiina Munawwara hadana wuxuu deganaa Basra marka maxay ahayd kibaar taabiciin ahaa waqti Abd Malik uu geeriyooday marka ninkaas wuxuu baal weyn ku leeyahay oo asaasku dhigay quraanka xarakaadkiisa ninka saaray xarakaadka kordhiga hoos dhiga marka waxa sheegay quraanka Abu Bakar uu qoray markii labaad hadana Uthman uu qoray sababii loo kala qoray waa kala sheegnay markaana xarakada quraanka la dul saaray markaana xarakada dul saaray Abul Aswad marka waxa la yiraahdaa waadic luqada Carabiga waa ninka luqada Carabiga dajiyay oo irida albaabkeeda bilaabay oo furay wuxuuna arday ahaa maxay ahayd Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wuxuu dhintay caalimkaas 69 hijriyada 69 هجرية وقت عبد الملك مروان دول أموي استاكتي يو أخربك عالم كلاوات درسيا كون غندنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته